بسم الله الرحمن الرحيم أخياري سو دوادا إن شاء الله تعالى عشر كاني بروجرامينج أيان سي ودي دونا وعشر كاني إن شاء الله تعالى سيديداد أيون نقنايا ما أنت وحارنا إنان سكشنس وإسكال هذا وقت وإسكير أوديس أيان ما إنان ما إن شاء الله تعالى صوحر من جبتر كهنا أو إنان صوحر نارنا إن شاء الله تعالى أو كوبات وسي بلاس بلاس أيان حرينا waxaan ku xiri doonaa insha allahu tacaala wax loo yaqaano arithmetic operations wax la dhaho ayaan ku xiri doonaa insha allah iyo say u shaqeeyaan iyo waxay yihiin ayaan insha allahu tacaala ku xiri doonaa arithmetic operationska say u shaqeysaa maxay qabataa waxyaalahaas iyo arithmetic operations kota waa xisaabaadka aad taqaanay waxayna ka kooban yihiin saa taqaanid waxyaala ugu waaweyn waa calaamada ku dar waa plus waa minus oo kala jar ah isku dhufashada calaamadeeda startiyaasa loo qorayaa waa division oo isu qaybina calaamadaasan qaadanayna modula haraa waxa la dhahaa jiro oo intaas ayay noqonaysaa marka isku dar iyo kala jar iyo isku dhufasho waa calaamadihi waaweynka ay taqaanay iyo isu qaybin iyo idaan ayay noqonaysaa insha allahu tacaala marka intaana maanta arkayna marka xisaabaadkan ayaan maanta arkayna marka waxaan arkaynaa lambarro soo gelinaynaa lama lambar isku darkooda kala jarkooda isku dhufashadooda waxaas arki doonaa insha allahu tacaala okay aan qoro marka koorkaas waxaan leenahay include input output stream using name space std main inta ayaa marka waxaan rabaa inaan dhaho marka muhiimadda programka marka koor la qoraayo wuxuu leeyahay process la raaco processka waxaa muhiim ah maxaad rabtaa inaad soo saarto waxa soo bixi raba maxaa waaye marka waxaan leenahay waxaan rabaa inaan soo saarno output aan rabaa inaan soo saarno outputka muxuu yahay outputka waxaa waaye maxaa macnaha waxaa leenahay programkan output aan rabaa inaan soo saarno output haddaan rabaa inaan soo saarno outputkaas muxuu yahay markaasaa waxaan ogaanaynaa waxaan u baahanaan ogaanaynaa markaan waxaan rabaa inaan qoro lambar lagu daray lambar kale wuxuu soo saarayo resultii kasoo baxayo la isku dhuftay resultii kasoo baxayo marka dambena insha allah markaan jabtarada kale u gudbina calculator camal aan u samayn doonaa insha allah marka waxaan leeyahay maxaan rabaa inaan isku daro laba lambar marka waxaan leeyahay number 1 waa qiimaha koowaad number 2 waa qiimaha labaad result oo ah markii la isku dardaro waxay wixii kasoo baxayay saddexdaas aan u baahanahay marka number 1 number 2 iyo result number 1 qiimaan siinayna number 2 na qiimaan siinayna resultina waa isku dhufa waa meesha wax kusoo bandhigi lahayn markaas waxaan leenahay see out isoo bandhig soo geli number 1 aan leeyahay macnaha number 1 soo geli sii qiimo number 1 markaas waxaan leeyahay geli ashaalaan badanay kan waxaad gelisaa haddaada sida loo geliyo waxaad kusoo dhigatay 10 ayaan kusoo dhignay insha allahu taala marka geli waxaan leenahay number 1 ayaan gelinaynaa mar labaad waxaan leenahay soo bandhig soo geli number 2 waxaan leenahay geli maxaan gelinaa ayaan leenahay number 2 ayaan gelinaynaa marka labadaa lambar gelino ayaa waxaan arkaynaa marka lambar 1 aan gelinay lambar 2 aan gelinay isku dhufashadoodii isku darkoodii kala jarkoodii ayaan arkaynaa markaas waxaan leeyahay result waxay la mid tahay number 1 oo lagu daray number 2 ayaan leeyahay labada lambar aan isku daraa markaan isku darno marka waxaan arkaynaa resultigooda ayaan heli doonaa insha allahu tacaala marka hadda waxaan samaynay waa variable aan dhigeergaraysanay lambar 2 qiimaan siinay lambar 3 waan isku darnay marka isku darnay resultigaa soo baxay maano inaan daabacay gartaa markaas soo bandhigaan leenahay markaas aan qoraayo waxaan leeyahay isku darka siyaalo badan loo soo bandhigi karaa isku darka ayaan leeyahay isku darka
hee isku darka markaan dhaho waxaan leeyahay number 1 xogaa waa nuur nuurna macnaha program marka programming tahay waa inaad wax qurux badan u soo baxo macnaha result fiican u soo baxo number 1 iyo aan leeyahay meeshaas space u dhaxaysiisana space weyn kama rabo waxay space aan ka rabaa iyo number 2 hee halkan waxaan gashanayaa equal aan leeyahay space xag ka marna xaggan space ka marna space halka aad gelisay xaggan uu kaaga muuqana wuxuu lamid yahay leenahay result waana ka yareyn kartaa waana ka badin kartaa waa iska qurxin waan waxaan sameeyay ka fiir marshaan waxaan dhahay kan message aan ka rabaa isku darka hee number 1 waxaan rabaa inay soo baxdo dan 10 geliyo 10 iyo fariin ahaan inay soo baxdo number 2 equal waxay la mid tahay result ay la mid tahay inay inta ay soo baxdaan ka rabaa intaana badin marka kolba programka la qoro marka wax yar baa la tijaabiyaa intaasaan tijaabinaa hadda inta waxaan u bixinaynaa marka arithmetic waan keedinayaa arithmetic ayaan u yaqaanaa 1 hadduuna wax error markaa soo saarin uu inoo fulo waa ka marka shaashadan noo soo baxday shaashadii madoweedaan helay waata waxay leedahay soo geli qiimay leedahay waa ka marka wuxuu yiri number 1 soo geli markaas waxaan geli 20 kaay soo geli number 2 markaas aan geli 40 message soo baxay marka fiiri wuxuu yiri isku darka 20 iyo 40 wuxuu la mid yahay 60 oo san ana qoranay soo geli inaga gelin number 1 soo geli inaga gelin number 2 40 iyo 20 ay kala gelin wadarta ama isku darka 20 iyo 20 ka number 1 ku qoray meeshaas lambar ku qoray iyo sideedaan u qoray 40 halkan number aan geliyay equal caadi aan u qoray 60 markaan gelinayna caadi ayaan u geli anigu ma soo saarin yani hadda marka insha Allah ta'ala aad wax sameynaysid aad macnaha maxaan ku dhahay aad wax sameynaysid waxa laga yaabaa marka qaarkood kale markaad sameynayso waxa ku furan inaad dhahay su'aalaan oo kaleeto isku darka 20 iyo 40 maxaan ka rabnaa 20 iyo 40 waxay noqonaysaa markaas oo kaleeto su'aalaan oo kaleeto waxa waaye adiga marka wax programming ka sameynaysid ama software la sameynayso software engineering insha Allah marka noqotid maxaa ku furan waxa ku furan su'aalaan kaleeto inaad dhahdid 20 iyo 40 soo maahan ha okay 20 iyo 40 waxaan sameynaynaa marka waxay hadhow rabaa inaad gelisid qiimaha shayga aad gelinay marka shaygii iyo qiimihiisii in hadhow kala dhihi kareeto waxaa la gaday sokor intaas bariis intaas marka qiimaha qofku waa u deynaa qiimuhu isbeddelaa laakiin waxaan isbeddelaynin magaca ayaan isbeddelayn okay marka halkaas taas resultigeeda saasuu noqonayaa koodhkeeniina waa kana insha Allah ta'ala saasuu inoo noqonayaa markaa rabto inaan qiimaha inaan sii wadaan rabaa waxaan leeyahay marka result mar labaad waxaan leeyahay marka result mar kale wuxuu leeyahay leeyahay kala jaraan rabaa inaan dhaho markaas waxaan leeyahay number 1 oo laga jaray number 2 ayaan dhahaynaa number 1 laga jaray number 2 markaan dhahno waxaan leenahay meeshan oo kaleeto waxaan rabaa inaan soo bandhigo meesha marka message-ka aan soo qaadanaa message-kan sidiisa aan soo qaadanaa inkastoo ku fiican tahay inaan kala duuno hadda meesha result kaliya haddaan qorno waxa uu soo baxay sidaas leeyahay marka waxaan leenahay isku darka meesheed waxaan dhahaynaa kala jarka ayaan ka bedelaynaa kala jarka ayaan leenahay kala jarka number 1 iyo number 2 wuxuu leeyahay result fiir marka kala jarka markaan dhahno number 1 waa tirada soo saaraysa iyo sideeda ku soo baxay number 2 waa tirada soo baxay resultina ka soo saara okay si ay ugu fududaato marka labadan aan koobiyeysanaa ay ayaga soo laabanayo waa repeated waaye waxaan ka beddelaa marka calaamadda iyo waxaan beddelaynaa kaliya iyo waxaan beddelaynaa iyo waxaan ka beddelaa fiir marka meesha kala jaray ahayd halkan waxaan leeyahay isku dhufashaan ka dhigaa halkan isu qaybinaan ka dhigaa marka waxaan leeyahay kala jarka meesha ahayd isku dhufashadaan leeyahay
isku dhufashada kala jarka meesha ah waxaan leeyahay isu qaybinta number 1 iyo number 2 resultka ay soo baxaya intaas marka waa afarta calaamadood oo ugu waaweyn aan aragna marka waxay ka soo baxo ani marka hal meel la bedelay bas barnaamijku wuxuu ku fiican waxa waaye adiga wax adiga aad u mahagaysan ayaa isagaya waxaan marka maxaan leenahay isu qaybinta soo gali laba lamar ani waxaan gelinaynaa 20 iyo waxaan gelinaynaa iyo 4 ka soo qaata waxaan rabaa isku darkooda waxaan u baahanahay marka inuu ii soo bandhigo systemkayga isku darka labadan kala jarka isku dhufashada everything wuxuu yidhi marka fiiri isku darkooda horta waa 24 20 lagu daray 4 waa 24 kala jarka waa 20 lagu daray 4 waa 16 marka kala jirtid waa sax isku dhufashada 20 iyo 4 la isku daray waa 8 la isku dhufto waa 8 isu qaybinta 20 loo qaybiyay 4 waa 5 halkaas marka waxaa waaye waxaan ku haysanaa resultiga oo maxaan ku dhahayay isu qaybintii kala jarkii isku dhufashadii hal xabaa iga haray oo ah haraaga midka la dhahayo hal xaba waxaa iga haray oo qaybta la dhahayo haraaga ayaa iga harayso qaybta marka haraaga maxay noqonaysaa haraaga waxaa waaye inta badan haraaga aan aragna marka haraaga ama moodhulaha waxaa waaye inta badan laba tiro marka la isu qaybiyo waxay yeelanaysaa haraaya yeelanay 10 loo qaybiyo haraa ma laha laakiin haddaan 10 iyo 1 u qaybino haraaya jiraan haraagaasuu noo soo saara marka asagana 10 u qaybi haraaya jiro marka haraagaasuu rabaa inuu loo soo saaro marka asagana aan fiirina marka aan kala jarka meesha ay aan dhaho marka haraaga aan dhaho reminder loo yaqaana waxaan leenahay marka haraaga ayaan leenahay okay ugu dhufo marka calaamadii waan bedelay waxaan leenahay marka 10 iyo waxaan gelinaa 3 bii marka wuxuu dhahay 10 lagu daray 3 waay kala jarkooda waa 7 isku dhufashadooda waa 30 isku qaybintooda waa 3 u fiirsa marka isu qaybinta waa cagsiga haraaga ama reminderka ama moodulaha wuxuu ku yahay meeshan markii 3 loo qaybiyo hala haraayo halka hadaa rabto inaad tirada markaa haraageeda halka la ogaada intigaraa qaatay jiji ma gelin haddaa tirada aan isu qaybinayo aan meesha oo isu qaybinta aan ka dhigi lahaa aan jajab ka dhigi lahaa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay 3.5 inuu isiin lahaa laakiin haraagana ugu talagalay 3 10 markaa u qaybisay 3 waxay u helayaan 3 ku dhufo waa 9 meeqa haraay hal asagana saas ayaan ku haysanaa kaasna saas ayuu noqonayaa qaybtaasna maxaan ku dhahay insha Allah taala halkaas ayay ku dhamaanaysaa waxaan rabay inaan ku barano arithmetic operationska ayaan ku qaadanaynay arithmetic operationska marka waxaa waaye waxay yihiin waa qaybaha oo maxaan ku dhahay runtii aad iyo aad muhiimka u ah soorimaan qaybinaya kan ma share gareynaya marka halkan oo kaleeto waxaa waaye meesha kale markaan dhahay soo geli number 1 soo geli 13 aan gelinay 13 markaan gelinay marka waxaa noo soo baxday 10 iyo maxaan ku dhahay iyo 3 soo baxday isku darkii waaye kala jarkii shaashada kaga muuqan marka waan ku celinaa 10 laga jaray 10 lagu daray 13 10 lagu daray laga jaray 7 isku dhufashadii isu qaybintii iyo haraagi ayay noqonayaan kuwaasna insha Allah taala aan ujeedana rajayna halkaas qaybtaas marka intaas inoogu dhamaanay intaas waxaan ku baranay arithmetic operationska waxaa jiri karo oo laga yaabaa wadadan dheer iyo qaabkan dheer qaabkaaga fudud waan ku tusinayaa oo iska sahlan asagana maxaa sahlan ka wadaa yani qaab oo markiiba aad ku soo arki kartid oo hal line ku soo wada baxaya waxa dhaba hadda sidan oo kale haday ahaan lahayd haddaan dhihi lahaa si out result bes haddaan dhoo fiiri waxaad dhihi kartaa result markaa dhahayd waxaan dhahaynaa end line halka mushkila kusoo wajahaysa halka markaad sidan oo kale u qorto waxa waaye waxaadan arkayn message ma arkaysid halkaas waa qayb kale kan waa qayb kale fiir marka calaamaduhu ma ka bedelaa kan waxaan ka dhigaa kala jaran ka dhigaa resultigeedaan rabaa inaan daabaco isku dhufashaan ka dhigaa resultigeedaan rabaa inaan daabaco isu qaybinaan ka dhigaa laakiin waxay tahay wax ii sheegaya oo hadda aan haysto ma jirto oo caddayn ah hadhow wax le iska soo baxaya macnaha laakiin waxaan u isticmaalaa saanoo ka wadaa
koorkaagaa ku gaabanayo koor gaaban haysataa macnaha ma fahan marka saasaan ka wadaa oo koorkii ayaa kuu sahlan halkan sidoo kale hadda u qorno haraa iyo message noo soo baxay ma jirto laakiin waxaa noo soo baxayo result aan haysanaa laakiin halkan markaad koorka sidoo kale u fiirinaysid asagaa xoogaa ka kooban kii hore uu dheeraa message fariimo iyo wax badanaa ku jiray oo kale hadda daaran garayna fiiri waxaa dhahdaa arithmetic 2 ayaan u bixinaa 2 okay wuxuu ii soo saaray marka fiiri tusaalahaan oo kaleeto kanaan tegayaa marka waxaan leeyahay 20 iyo waxaan leeyahay iyo 10 fiiri marka wax risaalta ama 10 30 10 kale 200 eber kii hore iyo kan maxay ku kala fiican yihiin marka kii hore iyo result hadda waxaan muuqday iyo kan maxay ku kala fiican yihiin waxay ku kala fiican yihiin kii hore wuxuu isku darka kala jarka hewlow lambaraa kuu muuqday markastaba labada oo hadda kan markaad sidoo kale u aragto iyo markaad u fiiriso kan kale intaan rangarayno fiiri hadda kan markaan rangarayno saa uga shaqeyno iyo kan markaan rangarayno waa laba kala risaati programmingka markaad qoraysid qofka koorkiisa waxaa laga fahmi karaa oo qoray waxaa laga fahmi karaa intuu yaqaano programming ayaa laga fahmi karaa marka weligaa waxaa ku dadaashaa inaad qortid wax la fahmi karo hadda fiiri 20 aan gelinaa iyo 10kii haddaan gelinaa siday kula qurux badan fiiri isku darka kala jarka isku dhufashada isku qaybinta haraaga waa wax clear ah laakiin kii horeeto oo hadda iyal aan weli aan fiiriyo sidan u ahaa macnaha fiiri labadan shaashadood way kala duwan yihiin labadan qof 10 maxay ku soo baxday ma yaqaano 10 20 wada haysataa 30 soo baxday isku dar inay tahay maxaa cadeynayo kala jar inay tahay maxaa cadeynayo 200 isku dhufasho inay tahay maxaa cadeynayo haddaan hore u aqoonin ma fahmi marka intaasaan ku ekeynaa arithmetic operationska waa qaybahaasi ka kooban tahay isku dhufasho iyo isku dar iyo waxaas chapter 2 ayaan ku qaadan doonaa iyadoo calculator ah oo calaamadda la gelinayo waxa dhanna oo insha Allah taala la samayn doono markaas ayuu cashirka ku yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.